waxaan joogaa William Harley Park meel aad u qurux badan weeyaan run ahaantii oo leh biyo fadhiisimo meelo lagu lugeeyo makhaayado meelo kubad lagu ciyaaro waxyaabo badan bay leedahay runtii oo activities ah meel aad u qurux badan oo waxaad arkaysaa lamaanayaasha ayagoo meeshan ku ordayo qaarkood bahasha yareydee lagu ordayay عادة بنده هيك قبته so إلى الصعدة إن شاء الله إلا قلبت هالكم بان وقتي كقاعد عندنا إلا حاجة كلام سوريك دونا لقبان سامعين دونا كرامات قددنتي سيدي دو يا حولون دكتوبي دوينتي مقعا قديم مري تاريخ بعدم بيسه هكتجن وحلا قديدو ما بهني بينا كرك سوري هالكم بان مري كرا أنا ملينا بس هذا سي سعدان أركي مرك حنا ملينا هالكم مرك الحمد لله هنكبق قلبتي أن كان سلا إنه ميلهن وخلي ما هذا والله sababtoo aad عاود waxaad moodaa shirkayga inuu u baahnaa naftaydu inay tabaysid wallahi moodaa hawadan freshka ah iyo عاود yare macaan leeyda ah ma sha Allah alhamdulillah mar baan ku sigtay aan kor ka soo wareego ka waran halkan oo ana halkan heli karo waxaan moodayay biyaha inay is saaran yihiin bahalkiga marka ma moodeen in qayb lagu socon karo baa ilaahay ma sha Allah this is amazing khayada ku yaalo oo qofka haduu soo daalo oo wax ka cuni karaa mararka qaar picnic-ya lagu qabsadaa oo meel madalooyin fara badan lagu sameeyo waaye xor baad u tahay halkaas intaad maaragtay jaadis ka dhigataan adiga saaxiibada inaad sida doontaan galabtoo dhan وقربان طماطان ورمتي آد بين معانتي هو معانا والهيسان فيو آد قرح بدنا ويلي دارنا هانتي آد بيو قرح بدنت كراس بالوسمي قفك تلهيسها ما قفك إمادو إستجنا استوك فريستو وأنا فري العقل الآن بلقصه قلامي لهم ويلها يا مدن كأني بويلي هنا أيروبي وكلها ويلها هيد وميلب بعجق هو قرح بدنا وانكو أركتيره لكن فري لو ما قلت شرنا العقب بانكو قلت شرنا لكن تم واسك فري maybe هداد waxyaabaha yararka doomaha kala raacaysa in lacag laga qaado waa laga yaabaa san qiyaasay inkastoona hubin laakiin waan qiyaasay in lacag yihiin iyagu laakiin sida kale waa free waad iska dhex joogi kartaa maanta oo dhan way yihiin baago aad u weyn yahay dhinacaas naftirkiisa waxaa ku yaalo makhaayado iyo meelo qurqurux badan oo picnic lagu qabsado family baa diyaarsanayaan u maleynayaa meel ay fadhiistaan oo aba alaab culus jiiday yaryar malaha fadhi diyaarsanayaan inaa isaga soo noqda ila qurux badnaatay soo xaggan aynu u soconaynaa ما شاء الله marka aad aragto sida aan ugu qanacsanahay cimilooyinka iyo jawiyada noocana dadka qaar baa waxay ii soo qoraan waa from gaalkacyo to Canada way yiraahdeen ma ogta alxamdulillah oo kama faanayo inaan dhankayga ka imaaday laakiin samiihi qof ay baagag iyo meelo qurux badan hadda ugu horeyso ujeedadaydu waxa waaye markaan maanta oo qanacsanahay ma sha Allah hadahay waxa waaye horta waa mid waa alxamdulillah waa ii dabeecad inaan maaragtay markasta ma sha Allah iyo alxamdulillah inaan dhaho waa ii dabeecad waa luqadayda aan aad u isticmaalay inta badan midna waa mid inaad ilaahay neejarkiisa markaad saan oo kale meelaha noocan imaato neejarkan saan u qurux badan inaad intaad saa u fiiriso tiraahdo alxamdulillah inaad nolosha shukriso waxyaabaha aad haysato oo caafimaadku ka mid yahay
ilaahay caafimaad buu isiiyay aan ku soo bixi kara galabta alxamdulilah fursad iyo amni buu isiiyay dad baa xabsiyo ku jiro alxamdulilah hawada macaan inaan si lacag la'aan ku qaadan karo لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى يا قرآن كيس توس إنه قبلن قاضيه هدينو شكر نقنو وينو محد نقنو إن لينو سيادين حيو هدي أينو كقالوا لنا الله وياه عذاب كيسو مدرن هنقط عقاب أدون كالقوم مارين حيو أما هنقط عذاب كي آخره هدي أنت هاي ستو وينيسو كو قناعدو inta wanaagsaneed haysato aad tiraahdo alxamdulilah ilaahay baa isiiyay waxaad noqonaysaa qanacsanaan miidhan waxaad noqonaysaa qof oo deganaanshaha kugu badanaya stresska ka yaraanaya deganaantaada badanaysa farxadaada badanaysa laakiin haddaad inta yare ka dhiman aad focus ka saarto farxadda ka yaraanaysa intii aad haysatayna kumaadan shukrin ilaahay uu ku siiyo waxa laga yaabaa inay ka kala sayranto marka wax wanaagsan inaad maaragtay wax walbaba aad tiraahdo alxamdulilah aad tiraahdo nolosha dhanka positive-ka aad iska tustid qof walba hadda wuxuu haystaa noloshiisa dhinac positive dhinac wanaagsan oo aan maaragtay oo wax lagu farxo leh qasab qof walba uu haystaa marka inaad tiraahdo alxamdulilah meeshan waxaa lagu dhaxwataa baaskiilo waa lagu dhaxwataa ciyaalka dadka waaweyn waxyaabo badan activity fara badan baa ka dhex socdo oo maasha allah that's so amazing waxaan aad u farxay mataqaanaa maamadaas ayeeyada waa la soo kaxeeyey meeshana loo dalxiis keenay noloshu hadduu qofku waayeel yahay hadduu dhalinyaro yahayba lagama maarmo inuu qofku helo fan inuu helo jawi bedelan maalmaha qaar cimilo fresh inuu qofku soo qaato inuu maaragtay wallahi lagama maarmayo niyadda qofka u dhismiyo isagoo wuxuu laabanayaa jawiyadii quruxda badnaa soo qaatay isagoo maaragtay wax badan iska bedeleen ayuu laabanayaa marka wax fiican ma sha Allah aad baan ugu farxay dadku waaweyn waan jecelahay anigu si gaar ayeeyooyinka aad baan u jecelahay sababtoo ayeeyo kuris baan ahay gabadhaas maamada ayeeyada wada aad bay u mahadsantahay runtii waan ku farxay marka waan jecelahay dadka waaweyn in la xanaaneeyo si fiican loola dhaqmo la ixtiraamo aan maaragtay la dhibsanin culays loo arkin sababtoo ayagaba markaan yaryarayn aan ku xaaraynay dushooda ku kaadinaynay namayn dhibsanaynin jacayl bayna siiyeen kalgacal bayna siiyeen naxariis bayna siiyeen maaragtay namayn kohanaynin soo marka maanta inaan inaguna kohanno ma ah waa inaan dhahno wax kastaad u qalantaa boqorad baa tahay boqor baa tahay aabbo awowe boqor baa tahay ayeeyo boqorad baa tahay ayeeyo wax walba wanaagsan baad istaahishaa inaa maaragtay aysan dareemin inaa qofka bini'aadanka uu dareemayaa markaad culays aad ku dareemayso maaragtay waxa aad u qabanayso laakiin iska samee ay kaa tahay qofku wuu dareemi iyo markay genuine qalbiga gudaha kaa tahay inaad waxaan u qabatoodan adoon waxba kaga rabin runtii way aad bay u kala duwan tahay wuuna dareemayaa qofku caadi buu dareemayaa asxaanada ugu fiican adduunka ama waxyaabaha kalgacalka ugu qiimo badan aan idhaahdee waxaa weeyaan kalgacalka qofka adoon waxba ka rabin oo ka rabin aan ka rabin ii sheeg wax uu kuu soo celiyo ama abaal gasho aan islahayn ama berriha waxa ku taro aan islahayn si maaragtay dhab ah qolooyinka waxay ku yidhahdaan ereygaasoo kale genuine bay markaasoo kale isticmaalaan si genuine oo yani dhab ah oo kaa dhab iyo nuxur iyo dhuux kaa ah inaad qofkaa waxaa u siiso u hibayso kalgacal hadduu yahay hadduu hadiyad yahay hadduu caawimaad yahay hadduu waqtigaaga yahay hadduu xanaaneyn yahay inaad qofkaas si dhaba ugu hibayso waxaas ayaa ah waxa maaragtay ugu macaan markaas qofka hataa wuxuu ku dareemayaa raaxo saa'ida
وواحد أقول معنا هنا أنتي أنا قلت له قلي ما توب قال الحمد لله this is nice بودكاست أنا كريستان غلا سوري قا بس أنا بيها تعالي قيانك والله قيانك ما تعالي shimbirkan horteena ka muuqdo Canadian Hunter baa la yiraahdaa waa shimbir aad ugu badan wadankani Canada meel kasto biyo fariisin oo aragto waad ku arkaysaa waa shimbir aad u qurux badan runtii daa'us ma aha laakiin somehow isagana aad buu u qurux badan yahay waan ka helay runtii noola kastaba qaabkii uu isku maareyn lahayo Allah bari Allahu akbar hadda sida uu qoorta hoos ugu qalloocinayo waxa weeyaan marka uu cawska dhexdiisa wax ka ugaarsanaya ayuu sidaas sameeyaa waa cajiib Allahu akbar sidoo doonu qorta u qalqalooyin kara hoos kor ma sha Allah this is amazing kashaka ma sha Allah halkan baa laga kreystaa doomaha bahasha yarka doon ma ahaane wax yar oo xawaya waaban iska tijaabin lahaa gaarigan ku soo iloobay fursadii iyo kaarkii wixii dhan culayskan diiday xataa biyaha cabay ma soo qaadan ani bisaas oo baxay telefoonka haddii aan mar kale ka soo gaarayo weligeed wow meeshan waa makhaayadii wakaa qofkii ilaa iminka maamadii wuu wareejinayaa wiilkii mar dhaweyd gabadh baan moodayay waa wiil kooxa la isku soo raacaa cuntadaa la soo qaataa hadda qabiilla halkaasaan isku soo dhaafay saasay ahaayeen ma duubin iyo gabdho saxaabo oo tiim oo arkayay niman iyo dadka kaamirada kuma qaban kartid dee waad ka xishoon waqti ma fiicno markay dee si bareefada u fadhiyaan laakiin hadda halkan hortayda xataa tiim baa fadhiyo marka kooxaa la isku soo raacaa halkan baa la iska yimaadaa jawigaa la iska bedeshaa it's beautiful wax qurux badan waa runtii karaamaad ku dadantee sidii duuya hawlun dhegtubay dawayntee magacaaga diib mari taariikh baa dambaysee ha ka tegin wax laga dido halkan bay u sameeyeen dadku inay ku ordaan sida hadda ninkaas sii ordayo kale badanaa waxaan waxaa imaado usbuuci halka maalin ay rabaan inay isjimicsadaan halkan imaado qaarkood maaragtay hilib iska dhimayo qaarkood ay just fun iyo baashaal u yimaado dhinacaas gawaarida maraya wadadaas gawaarida maraya xaggana waa biyihii marka sidewalkan wuu wareegsan yahay ilaa iyo dee in badan ilaa kor wuu sii jiraa albaab wuu weyn yahay weli xaggaas waxbaa naga sii jira maqaayada naga shisheeya weli meelashidan baa weli xaggaasii ah laakiin runtii waan daalay anigu waan dheelmanayaa bas gaariga ilaah gaarsii baan taaganay hadda markaan shanqadha dabiiciga ah ee geedaha markay dabayshu ruuxayso waa macaan caleenta geedaha maaha caleenta keligeed baa shanqadhayso waan jeclaystay runtii macaan waay dhegeyso
aniga ahaan aad baan u jecelahay waxyaabaha meelaha neejarka ah miyiga waddankeeni markaan joogayba waxaan aad u jeclaa aadista goobweyn kismaayo korkeeda goobweyn qaamqaam meelahaas aad baan u jeclaa marka waa wax neejar oo dabeecado igu abuuran inaan jeclahay meelaha maad aragtay dabiiciga ah iyo dhirta carafta dhirtaan jeclahay muuqaalka cagaarkaan jeclahay shanqadha biyahaan jeclahay cirka buluugiisa markuu saas ugu ladhaan jeclahay waxyaabaha neejarka ee makhluuqaadka waaweyn ee ilaahay ah aad baan u jeclay runtii inaan daawado niyadda iigu degta qalbigayga jecel marka waan rajaynayaa dadka sideedoo kale jecel inay qalbiga igala dalxiisaanoo muuqaalada noocan ay jecel yihiin baan rajaynayaa aad baan idin salaamayaa saaxiibayaal mar kale waan iska dheelmanayaa hadda waan daalay bas waaye aynu wada guulaysano habeen wanaagsan bye bye